muslimiintuna waxay dhexda maanta ugu jiraan siba ahlu sunnuhu mashruuc aanay laa naaqata walaa jamala aanay waxba ku lahayn dushooda la isku dilaya yaa isdilaya laba mashruuc oo kale almashruuc الsafawi iyo almashruuc الsahyuuni mashruuc sahyuuniya oo israa'iil ilkubra raadinaya israa'iil taballaadhan oo dunida in badan oo ka mid ay u khidmaynayso oo waddankii dunida ugu weynaa uu madiidin u yahay mashruucaasi inuu fuliyo iyo mashruuc kaa ka soo hor jeeda oo mashruuc safawiya ah ashiica araafida qolo iyaguna dadkaba ahlu sunna ugu nacab kuwa laa ilaaha illa allah muxammadun rasuulullah ee le saxaabadii nebi maxamed oo dhan waa dad wanaagsan oo waxba kala saari mayno ee iyaga qaarkood leeyihiin afar unbaaba mu'minka ahaaya inta kale waa tii munaafiqowday oo u arka taariikh horoo tagtay inay dib u soo celiyaan iiraan maanta waa la dulmiyey iyadoo aanu ka rumaysannahay inaanay ahlu sunno khayr u wadin ayaa waxaanu leenahay haddana laakiin waa la dulmiyey ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqist walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلهي وحلي وركوا مؤمنين تقوموا لله إلهي درتي وكع ووحى نقطة شهداء بالقسط عدالتك وكما خاتك ولقن ظلمها تاجرين با إلهي لي مركز إلهي وحلي ولا يجرمنكم يأيدنكم حنبارن شنآن قوم دول عرأ وقبطان على ألا تعدلوا إن إذن عدالة سمينين يدوكو حنبار با إلهي لي هبل وعرى السنة وتصفية الحساب وشالي بوحان نقول لغانا ونمرك يغانا نقول لغانا إلهي وحلاي تاسي ما شرتو عد هكو حد قد بنا اعدلوا هو أقرب للتقوى با إلهي لي ورع عدالة السمائية عدالة أدو الله كعبسيه إسلا في سورة المائدة وحي إلهي سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وريايدن كو كلفين با إلهي لي عرأ الدول قبطان كوي مساجد كيدين ديدي وقرشتي أي سهيين النبي عليه الصلاة والسلام إيه مسجد كسو صار إيه دول كودي كقاضي أي أهدنا إلهي لي سبحانه وتعالى عدالة مركيتي ماضو كوا إنا كحد قدوبتان يا عراء وقبطار دين قارسين با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إلهي مركز وحلي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إسرائيل سدح ليير أو مريكنا مركو مدفع صور دافو أيو شين ليير أو إسرائيل الذي تجي مركا وحكستو يسوق جنان كو حريها عيدنا وكل يودن كعراق بقى هرتجا هدور دافو xeryaha ay urdun ku leeyihiin baa ka hortaga hadduu dhaafo mediterranean-ka markabkiisa weyne taagan baa ka hortaga hadduu intaas soo dhaafo markaasuu wuxuu soo galaa 5 leeyar oo kala dambeeya oo Israa'iil ay leedahay markaas oo ku jiro saadkii Mareykan oo ku jiro maxay wixii ay iyagu samaysteen saddex iyagu samaysteen iyo laba Mareykan leeyahay ay ku jiraan 5 leeyar oo ka dambeeya Israa'iil waxaan arkaysaa ku dhacdhacaya وسداد ميلود وكتلابا سداد دفاع وكلا قديسان مركو كتلابا يبو إسرائيل قاعد كوي تريليان كوا وليبا بليانو سيا كوي تريليان دا سيينا تريليان باي سيا كوي تريليان دا وقود دا غينا وسمدو دوا مكشوف وحكا ساكو داعية بل وحال الربا انت إدقالك قلان مركا يسفي عن السوق قلان inuu Mareykan ka baxo la yiraahdo idinku isteelay labadiinaba hubkaan idinka iibinayna si Ciraaq iyo Iiraan 8 sanadood bay isteelayeen labadaba hubkaan laga iibinay balayaan inoo dhaweynayna soo jiidan wali dagaalada kuma jiro laakiin talaabooyinkooda siday u socdaan hadday u socdaan
dagaal aynan shaqo ku lahayn baynu gelaynaa dagaalaan waxba aynan u haysan shaqana ku lahayn iskana difaaci karaynin ayaynu usii soconnaa inaynu galno waxaa habboon madaxdeenna iyo mijaheenna iyo salaadiinteenna iyo cuqayaasheenna iyo qabaa'ilkeenna inay si fiican u fakeraan sida fiican inay u fakeraan waxa weeyaan haddaa xortiin waddankani hadduu xoryey hadduu qofku wuxuu doono odhan karaa hadduu halkuu doono mari karaa halkuu meeshuu doono seexan karaa hadduu walilaahi alxamdi nabad ku haystaa waad nabad waayi waa madaxdoodii kuwa meel walba lagu laynaya maaduu kaa jecel yihi hadduu kula yimaado hadduu kula soo dego maaduu kaa jecel yihi idan haddaad xor tahay ee gumaysi ha doonan waddankani hadduu xor yahay bale waxaan odhan karaa meeshan aynu degannahay caalamka ilaahay abuuree maanta dunida ka jira waa dhulka ugu xorriyad badan haddii xorriyadun qiima ay leedahay